السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل والبو جوجتانبا kusoo dhawaada barnaamijka qurba joogta barnaamijkan alaaba waxaan ugu talagalnay inaynu qurba joogta kaga faa'iideysano aqoontooda xirfadahooda iyo waayo aragnimadoodaba haddaba barnaamijkan maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo mowduuc aad iyo aad u muhiima mowduucaas oo ah social justice ambase waxqabadka bulshada ee ku salaysan cadaalad haddii aad aragtid dal horow maray amba bulsho horumar samaysay waxaa lafdabar u ah waa social justice ambase waxqabad cadaalad ku salaysan haddii aad aragtid dal jahwareer siyaasadeed ku jira ambase bulsho faqri la ildaran waxaa lama huraana inay ka jirto meeshaas social inequality ambase cadaalad darro bulsheed haddaba barnaamijkan maanta waxaanu ku soo marti qaadnay laba dhalinyaro oo aqoonyaana oo degan dalkan ingiriiska waxa weeye xasan xuseen cali oo loo yaqaano xasan janti oo degan magaalada Manchester iyo maxamuud cumar dulle oo degan magaalada madaxda London ku soo dhawaada barnaamijka cali waad mahadsantahay waan dhownahay saan soo sheegaba mowduucan waa mowduuc aad u muhiima waana de mowduuca maaragtay bulshada inta horow martay inta badan ay maaragtay raacdo kolka dulle bal waxaad noo sheegtaa mowduucan maaragtay social justice-ka wuxuu yahay bismillahi raxmaani raxiim marka la macnaynayo social justice horta waxa weyn waa laba kelmadood waa bulsho sidee loogu samayn lahaa cadaalad meel wada degan marka saddex kelmadood bayna ka maarsamin oo ah wealthiga ama hantida ay bulsha leedahay oo si isku filan ama isku siman loo qaybiyo oo opportunity iyo privilege labada kelmadood oo kala raaca marka waa in bulshadu ay hesho si isku siman ah ay u wada korto ee inayna kala korin macnihiisan qaybina ay horow marin oo wixii hantidii guud ahaan la lahaa ay jeebka ku wada shuban oo kalena ay maaragtay daciifin taaba opportunity la yiraahdo iyo privilege iyo waxa uu qof kasta u leeyahay oo tartan inuu jiro oo loo eegin qofkii maaragtay qabiil ama bulshada qaybtu kaga jiro social justice-ku haddii la soo koobo waa hanti bulshadeed oo si cadaalad oo isku siman loo qaybiyo ay dawladuna u qaybiso kolka waa hantidii qaranka oo si siman ummadda loogu qaybiyo nin kastoo muwaadino na maaragtay xaqiisa uu helo sax sidaas xasan dalkeenaan u imanaynaa dalkeenna markaad eegtid wixii 2000 ka horeeyay sagaashamaadkii iyo 80maadkii noloshu sibay ahayd wixii 2000 ka dambeeyana noloshu waa si oo waxa weeyaan ummadiina way kordhaysaa oo de tarankii ummadda kordhaya maya dhaqaalihiina waa kordhaya kolka markaas bal waxaa noo sheegtaa social justice-ka dalkeenna labadaa qaybood iyo hadda siduu yahay bismillahi raxmaan raxiim cali case horta aad baad u mahadsan tahay barnaamijkana waa barnaamij aad u qurux badan dhammaan ummaddeena reer Jubbland inay ka faa'iidaystaan social justice amba cadaalad in la helo ay dadku helaan waxa soo macnay duule laakiin 20 sanadood laga soo bilaabo 80kii ilaa 90kii laga yimaado 90kii ilaa 2000 kulli isbedel weyn baa ku dhacay adduunyada sidan dadka maaragtay dadkii baa kordhay oo demography baa dadkii oo dad baa dhashay dadkii way bateen technology baa soo baxay wadankeenu sidoo waagi markii hore 90kii wixii ka horreeyay ahaa arrimahan sinaanta qofka amba qof inuu cadaalad helo xaquuqna helo opportunity-na oo helo way aad u fiicneed way dadku way koobnaayeen nidaamkuna aad buu u qurux badnaa markii hore laakiin marka laga soo bilaabo 2010 ilaa 2020 marka laga soo bilaabo waxa uu eg tahay in opportunity iyo privilege-ki tartankii iyo wixii qofka xaq u lahaa
inay aad iyo aad u yaraatay taas aan u maleeyo aniga aan sida ila tahay aan u maleeyo inay maaragtay nidaamkii iyo systemkii loo dejiyay in 10 sano ka hor inta dhalinyaradu dadku maaragtay 2010 wixii ka horreeyay nidaam in la dejiyo oo lala jaan qaado nidaamkan cusub ee adduunyada ka jira saasaa sababa inay maaragtay hadda aad iyo aad ay social justice ku iminka hadda Djibouti aad moodo inay aad u hooseyso okay kolka waxaad leedahay maaragtay 10 sano hore ayaansan maaragtay qorshe wanaagsan aanan loo dejin maaragtay nidaamkan maaragtay hab u maamulka bulshada ee cadaaladda ku dhisan maxaa cali mid baan kuu sheegay kulley isma ka barbar dhigayno wadanadan reer galbeedka ama ingiriiska kale ku noolaa iyo wadankeena Djibouti kulley dadkan waa dad aad u horumar boqolaal sano bay soo jiraan laakiin marka si kale loo eego 10 sanaba marba reflection amba loo fadhiistaa oo la jeegareeya oo la baaraa 10 sano ee soo socda ama meel baa la dhigtaa nidaam ah 10 sano ee soo socda isaga u dhaqmayna marka waxaad moodaa 10 sanadood dhaqankii la soo hirgeliyay ee la aragtay in maaragtay lagu dhaqmo ahayd yaa si qurux badan ayaa loo soo habeeyay kadib markii dadkii bateen dhalinyaro badan soo baxeen oo technology cusub soo baxay waxa markaa meeshii ka baxay waxa aad u yaraada ama meeshii ka baxay social justice oo qofku inuu right helin inuu xuquuqdiisa helin inay dadku equal and equality ay noqonin taas baa markaa ayaa timid dulle dabcan ilaa 9-maadkii ilaa 2000 laga soo gaadhayay markaad fiirisid dalkeena noloshan la yiraahdo maaragtay middle class ama nolosha dhexe awood bay lahayd oo dadku waxaad moodaa maaragtay xitaa saboolnimadu way yarayd oo dadka shaqaysanaya badnaa opportunity badan dadku ambase ganacsi waxyaalo badan baa la sameynayay so noloshu way iskabaysee dhaqaalaha waqtiga markaad eegtidna GDP-ga annaga maaragtay dhaqaalaha Djibouti waqtiga marka la 2000 iyo wixii ka horeysay waa yaraa 2000 ilaa 2020 marka la eego dhaqaalaheenu xoog buu u kordhay GDP-ga Djibouti xoog ayuu u kordhay laba laab baan u maleeyaa waxay noqonayso waqtigii marka hore loo eeg imikana waxay sheegaan dawladaha adduunku inuu 6.8 uu dhaqaalaha Djibouti ku socdo haddana markaad eegtid 2000 ilaa hadda waxaad moodaa noloshu inay sii kala socoto oo dad yarna ay maaragtay ay siibteen ummadda intoodii badneedna maaragtay saboolnimo iyo maaragtay shaqo la'aan iyo dhibaata ay haysato kolka annagoo dhaqaalaheenu 6.8 xawliga uu ku socday maxaa keenay in ummaddu ay kala maaragtay ay kala siibtaan ama kala fogaadaan in yarna ay kor u baxdo intii badneedna ay dhibaatadu soo gaadho maxaa keenay waxa la yiraahdaa horta waa runta way kala baxsan tahay bulshadu markastii oo dhaqaale soo galo qolona way kobocdaa qolona hoos ba u dhacdaa laakiin waxa ka baxay meesha dhexda wixii xukuumadii isku qaban lahayd labadan bulsho ee si kala baxaysa marka waxa jirta mar la marka uu dadku ama wadanadu ay hoos u yaalin dhaqaaloog ama faqiirin yihiin sawir la bixiyaa jirto waxa la dhahdaa dhaqaalaha wadankani sida gororka oo qofku ka gororsan koo kale goboda ay u socdaa baa la dhahaa laakiin mar alla markay soo gasho wax hadii si fiican loo maareyn waayo hemorrhage economic wax la dhahdaa ku dhaca ama dhiig bax dhaqaale ba ku dhacaya marka halkana waa sidii maadaama ay fluid badan oo lacag soo gashay ama opportunity badan ama ay kaymatas fursado badan oo dhaqaale lagu samaynayo gororkii way dhaafto waxa dhacay inuu dhiig bax dhaqaalo uu dhan uu socdo ay tahay oo marka meesha wixii nidaamin lahaa ee sidii maagadayn oo kale u sameyn lahaa maagadka waxa loo sameeyaa si ay biyo ugu yimaadiin beerta sidii loo sameyn lahaa ka baxay marka waxa dhacay inuu faruurmay dhaqaaluhu dhan u faruurmay bulshada marka bulshana waxay noqotay in xagga sare u baxdo bulshana ay maaragtay bilaadaad noqoto marka taana waxa ka mas'uula dawladda oo mechanismigii la iskugu hayn lahaa labadan bulsho ay ka baxday imikana waa la sameyn karaa wax adag maaha waa statistic yaroo la sameeyo survey yaroo la qaado dadkii oo la tiro koobo
meeshii uu daadku ka faruurnayn la yar xidho unbay ku xidhan tahay bes wax dhibaato kaloo ma jiro la isku keen laakiin waxay u baahan tahay balaan 5 sano ama 2 sano 3 sano soconayo kadibna wixii waa la isku soo celin karaa kolka waxaad leedahay dhaqaalihii maanta waan haynaa Djibouti laakiin qaabkii loo maareyn lahaa unbaa loo baahan yahay in dib looga fadhiisto oo maaragtay dib loo nidaamiyo warun xasan dabcan dalkeenna waxaa la yidhaahdaa inta badan jirana dee xaqiiqdii waxa weeyaan maaragtay shaqo la'aantu aad ayay u badan tahay weliba gaar ahaan dhalintii wax soo baratay jaamacadaha ka soo baxday intooda badan guryahay fadhiyaan oo dee shaqo ma hayaan wixii ay soo barteenna ma ogtahay guryahay la fadhiyaan haddii ay dhalintani maaragtay maadaama de dad aqoonyaana oo de wax abuuri kara oo maaragtay fikrad la iman kara yihiin hadday isku dayaan inay maaragtay okay dawladdii maadaama ay shaqo jirin waxaanu annaga shaqo abuurayna oo mushtar baynu galaynaa iyo business kale iyaanu samaynaynaa hadday yidhaahdeen waxaa la leeyahay dalkii maaragtay systemka ganacsiguba waa xidhan yahay oo koox yar ayuu u xidhan yahay ganacsigii danyartii kolkaa waxaa dhacday in ganacsigii markay arkeen oo xidhan dhinacii dawladdiina aysan shaqo abuur ambase shaqo aysan jirin in maaragtay dhalinyartii guryaha ay ku ekaadeen de shaqo la'aan ay ku dhacday taasina culays badan maaragtay ay soo saartay waalidadii culays badan ay saartay waalidadii ku tabacay kolkaa ma isleedahay social justice-ka yaa waxa weeye nacam dhibtaa waxa ugu wacan maaragtay maareyn aanan si wanaagsan loo maareyn si maaragtay cadaalad ku dhisan oonan loo maareyn systemkii ayaa ugu wacan dhalinyartaas inay maaragtay dhibaatada ay ku jiraan miyaa isleedahay bismillahi raxmaan raxiim kulley arrinka aad ka dhawaajisay cali casoowe aan waxaan kala qaadi lahaa kulley 3 arrimood 3 dhinac ayaa u dhigi lahaa waa midka ugu horeysa 2 dhaliilood waxaan u jeedin lahaa dawladda oo waxa kamid ah horta ma jirto sensibilisation ma jiro oo dadka la wacyi gelinayo oo la oran karo ma aragtay shaqo abuur la yimaada amba shaqada sidan baa loo sameeyaa amba enterprise oo dadku ma aragtay inay shirkado yar oo subcontract ay furtaan amba inay keligood shaqaysan karaan ay wax samayn karaan marka ma jirto dacwad taa ku saabsan ay dawladdu bixiso badi ma jirto takalaatiye ee dawladda ku dhalinayna waxa ay tahay dadku waxbay soo barteen wayna la yimaadeen marka waxa meesha ka baxay nidaamkii oranayay qofkani qof baa engineer soo bartay mid kale engineer isagoo soo bartay mid kale tiyaa yimid marka dawladdu markay nidaamkan tacliinta ay dhigaysa ay habeynaysa ay leedahay dadku inay waxbarasho loo diro waa in meelaha loo baahan yahay ay baahidu ka jirto waddanka in dadka loo diro oo ma aragtay oo takhasuska loo diro ba ku wanaagsan saddexaad aan soo noqonayo dadkeena special dadkeena reer Djibouti dadka de Europe yimiday amba dibadaha yimiday ee ka laabtay way garanayaan system oo nidaam baa jira oo system baa jira in dawladda wax laga sugay way yaqaan marka nidaamkaas oo laakiin dadkeena badi waxaad moodaa dadkeena Djibouti in qof kasti uu leeyahay dawladda iyo lacagtii haysa dawladda shaqadii haysa dawladda nolosheedii haysa dawladda iyo kontraayo way bixisa oo lacag bidjo badan ku bixisa oo qandaraas baan sugaya intaas oo malyan marka dadkeena wax meesha ka baxay inuu qofku la iman karo in uu ma la iman karo isaga kaliya oo sameyn karo shaqo abuur oo kale for example waxa ka soo qaadan wadanka Maroc oo kale boqolkiiba waxa lagu qiyaasaa dadkiisa boqolkiiba 70 inay dad wax wada bartay ay yihiin oo doctora iyo maîtrise iyo wax wada haystaan laakiin haddana waxaad moodaa marka wadanka aad u fiirsatay shaqooyinka hoose ee basic oo dhan ka shaqeynaya wada cilmi leh marka kama dhigno qofku cilmi hadduu leeyahay inuu shaqo hoose ka shaqeeyo kama dhigno marka dadkeena waxaad moodaa in qofku hadduu cilmi leeyahay doctora haysto in uu meel dukaan furan karin inuu maaragtay boosharile ama xawaash kadi karin in uu maaragtay taxi ku shaqeyn karin ama inuu gaari kala faan ama booyad ugu shaqeyn karin marka taasna waxay ka dhigan tahay in dadkeena ay fahmaan dadkeena dibadda joogto qurba joogtana laama ee wadan ku laama marka systemka way garanayaan in dadka ay maaragtay intii wax la qaban karaan ururada oo association kaleeto inay u macnayaan wax u sheegan ay yiraahdeen
war tan baan samayn karnaa tan ma samayn karno tagale ugu dambaysa ku soo noqonay waxay tahay dad ka dhawaajisay social justice iyo u sababa inay dadku horumarin yes way taala meesha oo wasaaradii amba institution ka shaqeyn la social justice in qofkaas awraad hela amba opportunity amba privilege helo meesha way ka maqan tahay dulle tan waxaan u soo noqonaynaa maartay ganacsiga wadanka waayo wadankeenu waxaan jaar la nahay dal idilo ilaa 80 milyan in ka badan ay ku nool yihiin oo wax aliya wixii la geeyaba liqayo waa Ethiopia garas kolka annagu dad yar baan nahay dadkeenuna ganacsiga xaqiiqdii haddii maartay similari iyo wax loo furo si wanaagsan bay ugu wanaagsan yihiin wayna ka shaqaysan karaan kolka saan ka soo dhawaajiyay inta badan waxaa la leeyahay ganacsigii waa xidhan yahay oo waxay dadkiina way rabaan inay ganacsigii sameeyaan kolka arrinkaasi seed u aragtaa seena loo furfuri karaa ganacsiga wadanka bismillah waa su'aal fiican waxa weeyaan muhiimadu sidii loo furfuri lahaa waxa loo baahan yahay laba shay ba ugu muhiimsan kow in dadkan etide marshega horta la baro in uu qofku soo maaragtay darso baahidii meesha taalay waayo baahida laga sameeyaa lacag kow dawladuna ay u fudaydiso waxa la wixii qofkan maaragtay u sameyn lahaa import export ama uu ka soo qaadi lahaa boorka ilaa Ethiopia uu geyn kari lahaa taas waxa laga rabaa dawladdu waxa wixii ku saabsanaa cashuuraadkii wixii ku dhan soo sameyn lahayd dadkan kale ee wadanka joogana waxa looga baahan yahay inuu qofku holiday baxo isagoo holiday baxayana haddana etide marsheegiisa uu soo samayn karo etide marsheega waxaan uga jeedaa in uu baahidii meesha ka jirtay Ethiopia ama Kenya ama Tanzania ka jirtay uu soo samayn karo kadibna hadhowta halkan ka sii qaadi karo oo samayn karo marka qaybabka loo sameeyana waxa weeye qaab online iyo qaab physical inaad meeshii tagtidba ay tahay marka dadkan waxay u baahan tahay inay dawladdu haddii ay iyagu ku dhaqaaqi waayeen oo ay samayn waayeen inay u furto seminaaro si loo sameeyo etide marsheega loo akhriyo kadib markaa bay hadhowta dadkuna ku dhaqaaqi karaan oo qofku ka samayn kara arsaaqdu qofku meel kasta ay ka qoran tahay dawladun kama qorna ee meel kasta way ka qoran tahay laakiin waa in fursadii loo furfuro dadka oo ayna u ahaaninun tamaashiirtana hebel baa soo dejinaya boorka wax lagu qorayana heblayaa soo dejinaysa hadday noqoto dee waxay noqonaysaa qofka maskaxdiisii baad xidhaysaa waxaad leedahay aniga unigu xidhnow kadibna meel dheer ma tegayo wadankuna hore uma dhaqaaqayo iminka marka aad fiirisid dhinaca ganacsiga wadamada kale marka aad fiirisid iminka saliid oo kale yaan anigu doonaya inaan soo dejiyo saliidda magacayga cali ayaan ula baxay kolkaas saliidda cali ay ku qoranta oo quraata magacaasaa ii xidhan laakiin saliida iima xidhno adiga dullaa saliid dullaa waa soo dejisan kartaa saliid xasan uu soo dejisan karaa saliiddii waxa weeye magacii baa wadamadan way jirtaa wadamadanba magacaa xidhan laakiin ma xidhno alaabtu qofku nuucuu doonu soo gelin karaa wadanka laakiin inta badan wadankeena waxaa la leeyahay bariisku qof wuu xidhan yahay may sokortu qof way u xidhan tahay adigii waad la xidhiiri kartaa kambaniya maartay sokortooda ay jaban tahay wadankii waa soo gelin kartaa kolka taas oo kale see looga bixi karaa xasan maa siinaya horta cali waa mahadsan tahay meesha horta Djibouti waxaad moodaa in dawladda hadda joogta ama xukuumadda joogta in ay ku isticmaalayaan old system nidaam hore oo laga tegay adduunyada hadda iminka way socoto technology cusub baa yimiday wixiisi way adduunyadu way siibad wadhaafada marka Djibouti siyaasad ma jirto oranaysa siyaasadda horta meesha ka maqan tahay siyaasaddan oranaysa in dadka shaqo abuur loo sameeyo amba loo furfuro amba mishtarka qof kasta inuu soo dejin karo totally waxa aniga sa ila tahay meesha way ka maqan tahay sidaad hore ugu dhawaajisana dad bay amba maxamuud aw sheegay dad bay u xidhanto hebel baa laptop soo dejiya hebella kuraasi buu soo dejiya ilaa inta taa laga baxayo ma soconayno meel ma gaadhayo dadkiina waxay leeyihiin kolley annagu caawa marka hadlayna dhalinyarada la hadlayna haddaan wax biila keeno waan theory baan ka hadla laakiin practical marka garoonkii la tago ee meeshii la tago
nidaamkii system siyaasadii baa ayaa ma aragtay siyaasadii businesska furitaanka way xirantahay Djibouti total way xirantahay marka waxa loo baahan yahay in samirka la ilaaliyo oo la joojin tagalana in dadku ay fikiraan ay ma aragtay fikradu ay socoto oo la oran kara isbedel dhaqaale sidee wadanku ku iman karaa xukuumaduna inay ma aragtay reflection oo dad loo saaro oo meel ay dad fadhiistaan oo dad committee ama commission loo saaro oo commissionkaasi ay ka hadlaan ay ka shiraan war sidee dadkan horumarkii wadanka sidee baan ula qaadnay adduunyada kaleetii كل أنا بيجرب بانجول for example the English iyo Djibouti say ma noqonayaan laakiin Ethiopia dhaqaale badan baa ka socdo business boys aan garwa shaqaysta Kenya Soomaaliya Yemen oo burburtay hadda dagaal ka dhaceen dadku waxbay kala keenaan waxbay soo dejin karaan laakiin innaka oo yar oo shirkeen yar yahay marka dawladdu waxa looga baahan yahay in ay nidaam sida system laga bedelo oo loo fadhiisto oo la dejiyo nidaam cusub oo dadka opportunity badan siinaya dhalinyarada furaya waxaan la xiray oo qofka soo dejisanayna in qofka saadoo keena qofba kuma dhacayso saboolnimo kuma dhacayso laakiin wadankiiba qurux badan ficnaanaya ma dawladdiina cashuur badan baa soo galaysa alaabtana Djibouti kuma ekaanaysa xitaa suuqa weyn ee deriska aynu nahaan haysanaa moogta wixii galaba kolkaaba liqaya moogta iyagu marka cali midka halka su'aasha waxaan ku sii dari lahaa xasan baa dhameystiray in yar baan ku dari lahaa waxa weeyaan waxyaabaha la xidhayo adduunka waxba jirta la yiraahdo propriety intellectual wax la yiraahdo jirta macni maanta hadaan anigu wax qoro ama buug qoro daanu ii xidhan yahay buugaasi oo ideyadii aniga leh marka hadhowto wuxuu galayaa halkaas hadhowto qof kale qaato buugii anigu magaciisa ku qorto waxa la oranayaa waxan waa propriety intellectual waxad xatay marka dhaqankaas iyo dhaqanka dhaqaaluhu way kala duwan yihiin oo macni hadaan maanta sokor soo dejinaysid sokortu propriety intellectual maaha waa dhaqaale marka Djibouti waxa iskaga khaldan propriety intellectualkii iyo dhaqaalihii waa sax oo dad baa lagu naas luujinaya waa sax laakiin uu dhargay kan gofanu noqday bal kuwan kale ee shilinta ah ee wali shilintiisii ah iyagana bal u fura oo ku eega inta baan ku dirla dabcan dad yar baan nahay waxa meesha yaalana waa naga badan tahay saan soo sheegana deriskeenu waa ilaa boqolkii milyan ayuu ku dhow yahay dabcan maalin dhowd waxaan arkay dalka Mareykanka Congress-ka Mareykanka ninkan haysta maaragtay Commander in Chief-ka ciidamada Africom la yiraahdo haysta Congress-ka horteeda waxa uu ka cadeeyay in boorka Djibouti sidee uu la soo wareegtay maaragtay Djibouti uu la soo wareegtay DP World uu ka hawl badan yahay uu ka shaqo badan uu ka service fiican yahay markii ay DP World ay haysatay taasna halka waxa kaaga cad waxaaga markaad adigu u gacantaada ku jiro ee sideeda aad u maaraysid in aad wax ka dhalin kartid meesha aynu ku naalana waa meel very important strategic way and what the can meesha uu ku yaalo oo dawladaha waaweyn baad arkaysaa oo maaragtay iyagu gorgortam uu ka dhaxeeyo sidoo nin walba uu hanan lahaa meeshaas kolka meesha strategigan haysano iyo boorarka wanaagsan sidee ayaad leedahay waa looga faa'iideysan karaa xasan horta ani sida ila tahay ani kulay mowqifkan DP World marka horeba loogu saxay contract lagu siiyay ani ahaantay personally anigu micron ka soo horjeeday waayo sovereignty baa tahay wadan madax banaan oo wadan jira baa tahay laakiin in dhaqaalaha meesha ugu weyn uu ka soo galo in aad prefect ka dhigto oo privatized waa laga fiican yahay waayo waa meesha dhaqaalaha ugu weyn ay yahay waana runtaa imika sidii marka hore nin baa meesha iska lahaa ninkuna soo rabo u maamulay laakiin hadda dawladdu baa gacanta ku hayso wasaaradii boorka admabdegada iyo gacanta ku haysa marka uu ka fiicnaanaya sano hadda u soconayo oo iyagu lacag badan bay ka sameeyeen markuu qofku briefeey waxa keenaysa dad lacag badan ku sameeyo ma sameeysanaysa laakiin ka waxba kaamin kara dhaqaalaha wadanka sidoo u kobcay marka hadda markii hore waan ku jirta laakiin hadda waxa ay tahay yes degateen waa degadaha ugu wanaagsan ama ugu waaweyn East Africa uguna dhaqaale badan soo geliyo
laakiin si fiican looma maaraynayo dawladda si fiican looma maaraynaysa dhaqaalaha waddanka soo gala dadkeena dhammaanteen boqolkiiba dadkeena dhammaanteen dadka dhalinyaradu way u shaqo tagi karaan way ka shaqaysan karaan amba waxa badeecadaha ka soo baxay dibadda u iibkeeyaan amba booliska inay meesha shaqo ka helaan amba inay iyagu maraakiibtan bade ay wax ma aragtay badda dhexdeedaba ay wax ka sameeyaan wax ka soo dejiyaan laakiin waxa moodaa in dawladdu ay DP World way ka soo qaadeen laakiin haddana meel bay weli ku kooban tahay siday u eg tahay hadda marka dhaqaale badan ma haysanaa yes degada badan ma haysanaa yes 80 milyan oo Ethiopia qoodinaa yes laakiin social justice kan maanta ka hadlayno laguma dabiqin arrinkaas ama sataan dulle adiga maxay ahayd saan soo sheegayba dabcan meel istaraatiijiyan ku naalnaa oo Ethiopia wadiga arkayo way seexan laadahay waxay is leedahay dadkan yar ee 1 milyan aan nagdilayn annaga oo 100 milyan ku dhow bad ma haysano maaragtay ayaguna way haystaan kolka boorka meesha muhiimka ee ku naalu ilaahayna dejiyay dadkeenuna 1 milyan danayn seen ummadeena aan uga faa'iideyn karna nin walba oo muwaadana oo reer Djibouti uu maaragtay uu noqon lahaa qof maaragtay xaqiiqdii isku filan oo noloshiisu maaragtay nolol wanaagsan hela waxa weeyaan horta boorarka marka la sheegay adduunku way dhashaan wayna dhintaan boor kasti oo adduunka marka taariikhda eegtid boor Donvers ayaa jiri jiray ama Antwerpen oo ku yaala Belgiumka boorarkii Amsterdam baa soo jiray boor De Havre baa jiro Faransiiska ah marka boorarka adduunku marna way dhintaan marna way maaragtay kani Djibouti maanta uu nool yahay laakiin dadkiisii hadduu helo wuxuu hayn karaa ilaa 100 sano uu noolaan karaa oo haddii la bedelo boolisiga imika u dejisan macni boolisi waxaan uga jeedaa nidaamka u dejisan oo in la helaa dad loo train gareeyay oo shaqaale badan oo imanaya iyo dad PR la yiraahdo ama personal relation la yiraahdo oo iibgeeya ama xayasiin kara boorkan si loogu soo xirmi karo bari ka maalin waxa isbedeli kara istaraatiijiga adduunka isbedeli kara casab kii maaragtay boorkii casab ee Eritrea ayaa boomi noqon kara waa laga wala yaaci kara may Soomaaliya ba fiicnaan karto oo ka wanaagsanaan karta may saylaaba mid kale laga hagaajin kara marka qofku markuu boor haysto wadanku dagaal joogta ayuu ku jira oo hareerihiisa ah iyo flux maritime waxa la yiraahdo sidoo uu soo jiidan lahaa oo oran lahaa anigoo halkan jooga markabka Australia ka soo baxay waa inuu halkan soo mari kara isagoo hadda mari kara Yemen inuu sameeyo maaragtay xayaysiin gelin nidaamka meesha soo wixii oo dhan iyo son franchidiisu ay ballaandadaan dry port waxa la yiraahdo inuu sameyn karo oo dry port waxa laga sameyn karaa baadho oo kale waxa la wixii halka la dhigo hadii dry port laga dhigo isla markaa Ethiopia ay ka qaadato waa waxyaabo degdeg ah inta iman lahaayeen Djibouti ay jajabin lahaayeen markii laamiyado dikadihii oo dhan ama laamigii dadkii caadigu marayay ay la marayaan gaadhiyaashan xamuulku in la yiraahdo ha soo dhaafina dry port balka nigu sameeyna halka ka sii qaata waxaan waxa u baahan tahay uun maskax iyo policy iyo la dejiyo dadka oo dhanna boorkana wada deeqi kara kadibna wuxuu noqon karaa meel sida Dubai oo kala dadkuna wuxuu noqon doonaa sida hadii loo hagaajiyo caadi marka wax la dhisayo waxa la sameeyaa maaragtay lagu joogsado dadka reer Djibouti wuxuu noqon karaa lugaha intay sameystaan iyo ajaanib u shaqeyn kara iyaguna xagga sare joogi karaan waa hadii la helo de policy-geedii iyo nidaamkii loogu talagalay iyo dad maskax fiican oo bari ka waramaya laakiin aan ka waramaynin maanta iyo maaragtay inuu isagu intiisa yar u qaato dhinaca kale maadaama oo ilaahayna dhigay meesha maaragtay halbowlaha dhaqaalaha ee Babul Mandab uu na dhigay company waaweyn oo adduunku waxay ku fikiraan dalkeena inay soo degaan oo maaragtay halkii ay maraakiib ku soo rari lahaayeen alaab halkaas Afrika waqti badan qaadan lahayd waxay ku fikiraan shirkadaha iminka dalalkan European deganay shirkadii Toyota halkan ay joogtaa maya Nissan ba halkan jooga
Japan loogama baana wixii ba assemblyga hagana wixii ba lagu sameynaya isla markaaba Europe ba laga gelinaya kolka dawlado badan oo saamika Japan oo kale baabuurteeda Africa u qaybinayso inta maraakiib ku soo rari lahayd dalkeena oo kale meesha uu ku yaalo waa albaabkii Africa warshad way ka samaysan kartaa ay maaragtay ka qaybiso baabuurta Africa u geyso ku dhan amba kan ay Carabta u geyso maadaama aan ku naalno meel muhiima waqti hore waxaan maaragtay rag khubro aan ka maqlay shirkadahaas way noo iman lahaayeen laakiin wax quraatoon baa hortaagan waa kooraanka shirkadii ma awoodi karto inay ka baxdo kooraankeena waad garanaysaa xaqiiqdii marka la eego waa maaragtay qiimihiisu kor ayuu kacsan yahay kolka shirkadaha seen u soo jiidan karnaa kooraankana bal aan waxoogaa la zaa'iri karnaa dadka saan u helno because marka wixii adigu aad hoos u dhigtid dakhli badan baa imanaya halka kale ka soo kamaya wixii kolka taas oo kale see loo maareyn karaa Xasan bismillaah raxmaan raxiim horta sida horeba u sheegay wax maqan nidaam amba system amba policy dhaqaale oo wadankeena Djibouti u yaala oo maaragtay oo waqti dheer xadidan tagala waxa u baahanahay vision dheer aragti dheer dawladdu uma laha si maaragtay boorka wax badan looga dhaliyo shirkado badan wadanka yes way iman karaan maraakiib badan way iman karaan dhaqaale badan boorka waa laga samayn karaa laakiin waxay u eg tahay in dawladeenu systemkan ay ku shaqaynayso inuu be old yahay oo in la bedelo u baahan systemka u jira in la bedelo nidaamka technology yes wadanada shirkado badan wadanka iman karaan electricity-ga amba korontadu aad bay u qaali tahay Djibouti wax diblana maaha oo electricity waxa laga dhalin karaa iminka wadanadan Sacuudiga iyo Carabtan petrolka haysta inta petrolka badan u soo bixin shirkadaha weyn baa yimido biyaha badda iyay uga dhaliyeen amba geometry bay u qodeen amba nidaam marka shirkadan korontada iyada dhanba waxay samayn kartaa in ay loo maaragtay iyagu ededeedo in ay kor istaagto oo ay bixiso kontraayo ay dadka ay soo bandhigtay tiraahdo iyaa qaadanaya oo iyaa soo saaraya inta oo kilowatt oo electricity way samayn kartaa laakiin waxay anagii ku soo noqonaya marka hore tiyaba nidaamkan ay systemkan anoo yaala wax badan laga bedelo u baahan tahay loo faraysto commission loo saaro waa dhaqaalaha wadankeena si aan u kobcinaa sidee horumar aan u gaarnaa sidee wadanada kale horumar u gaarnaa yes dadkeenu u yaryahay dhaqaale badan ma soo kala wax badan ma haysanaa degad Ilaahayna siiyo meel fiican ma kuna la laakiin waxa u baahan tahay reflection in la sameeyo dib la isku noqdo loo faraysto oo table la isku yimaado la yiraahdo how sideen horumar aan u gaarsiinaa wadankeena dulle taasaan ka soo dhawaajinay dhinaca korontada waa maaragtay xaqiiqdii dhibaatada laba shayba Djibouti maanta ummadda waxa culays weyn ku haya waxa weyn waa kirada iyo korontada oo waxay mishaar ay qaadanayaan labada waa orta wixii ba qaata kolka korontada see loo nidaamin karaa oo maaragtay ummadda looga jabin karaa maadaama uu Ilaahay dhulku meesha uu nadijiyo dhul kululna uu nadijiyo sida laga casaaliyo dhul kulul oo laga dhalin karo see maaragtay loo habeen karaa waa sax weyn horta korontadu wax dhiba male waxa weeyaan sida waxaan sheegay weeyaan monopoligan ededeeda in horta laga qaado iyadu ay percentage u lahaato laakiin qandaraasyo hoos ahaaneed loo sameeyo taas waa mid kale oo waxa jirta koronto waxa jirta laga dhalin karo bano solaradi tuwa kale waxa jirta oo la iibsado oo adduunku sida uu la wareego koronto oo iyagu ku keenayaba meeshay doonaan ka keenayaan ama markaba keenaya oo intii waadeed u baahnayd ku siinaya sida nimiga kiiga Ingiriiska loo gashado aad ugu shubanayso oo wadanka dhanba sidaas loogu shuban karo oo hadhowto 2 sano 3 sano markay bixiyaan saa ugu soconayo oo kana raqiisan taasi waxay u baahan tahay in la fahmo dawladaha adduunka korontaduna maanta adduunka
inagu inaan bixinay ahayd marka hore korontadaba oon iibgeynaba korontada because cadceedeena daraadeed waayo waxa la sameeyaa nin 6 bilood cadceed haysta yaa ururinaya oo stokeynaya korontadiisii USB buu ku qaadanaya adduunku la tagaya yaan u shidaa wiliye marta yaan u geliyaa koronto oo maaragtay u shidaa USB bay ku jirtaa korontadu maba dheero taasi waa taas kow tani kale ee kambaniyadu way imanayaan aan leenahay kambaniyadu way imanayaan haddii korontadii laga jabiyo maskax fiican loo la yimaado waxa iman kara oo dadkaba deeqi kara Amazon portfolio ba u baahan tahay loo geeyo oo si fiican loo qoro sidii business ahaaneed Amazon maanta haddii loo geeyo waxa noqonaysaa hangaaro waaweyn intay ka furto halkan because Amazon waxba ma samayso China looga soo dira product marka Chinese inaga u dhow waxa la wixii Africa dalbanayay waxay noqon lahayd hub dhan oo halkan assemblage inagu intaan ku sameeyno lagana diro Africa oo dhan Amazon googa inaan nog haysano million ofna way ka shaqeyn karaan taaba ugu degdegsanba gaariyaashiiba kamid ah waxa soo dhan waxay u baahan tahay USB ga lagu sida korontada in portfolio fiican lala helo oo loo yar keeno laakiin muhiimka waxa la yiraahdaa hooyadu waxa la yiraahdaa ciyaalkeegu kama weynaadaan oo hooyada mar haddaad ciyaal dhashayd oday noqotana wiilkii yaraa baad u tahay marka dawladda Djibouti dadku waxa uu yihiin 77 way ciyaalkii yaraadan baa laakiin inay dadku koreen ama bateen warba uma hayso marka waa the connection de la réalité wuxuu oran jireen Francisco xaqiiqada bilaadanka markuu kala go'an yahay deedeeda ku filan u meelayn mis waan ka baxay kolka waxa leedahay ummadiina way kobacday dadkii way koreen laakiin dawladdiina wali sidii un bay leedahay caruurtan dan bay haysaa way deedeedii ma ku ilmihii wali waa loo yar yahan waliyada dadkiina waxay leeyihiin waa weynaanay adeer waxaanu rabnaa nolol baan rabnaa marka dhiig cusub u baahan dadku iyo maskax cusub u baahan wadanku mucaarad iyo muxaafid marka la leeyahay waxa la leeyahay waan weynaanay iyo ma weynaan baa la isku hayaa laba intaas waxa la isku hayaa arta arika waaruna waan weynaaday iyo ma weynaan weeyaan meesha waxa taala moogtay waayo runta marka la isku sheego mucaaradkuna maanta waxa ka qaylisina wax kala maan nolol wanaagsan u buraba waxaan waxa weyn war nolol waan helno waxaan waa nagu filan yahay dalku waa nagu filan yahay dad isla baan nahay bal nolol waan helno weeyaan wax kale ma aha Xasan adiga aqoontaada qaabkee ayaa dhalinyarta shaqo loogu abuuri karaa bismillaahir rahmaanir rahiim shaqo abuurka horta marka ugu horeysa waa nidaam ka yimaada ay wadanka dawladda ka jirta iya nidaamista oo meel dhigta oo soo saarta marka nidaamkii hadduu jiro dhalinyarada wax soo bartay kuwa aqoonta leh wax soo bartay marka labo bay u kala kacayaan dhalinyaradu kow waa kuwa wax soo bartay doctora iyo matrisi haysta iyo kuwa kale farsamo kacameed ama farsamo kaleetiya ku shaqeysan kara wadanka joog marka labadiiba connection bilay way isla shaqeyn karaan laakiin waa inuu nidaam iyo system ay shaqada ay ku helayaan ay ku raadsanayaan waa in mid dawladdu ay meel dhigtay oo yahay ay la soo baxaan ay ku shaqeeyaan marka dhalinyaradu frustration badan baa ku dhaca dhalinyarada waayo waxa imika ay u eg tahay in wadanka ka jirto baahi dhaqaale darre oo kaleeto waayo qofkiis waxa laga yaabaa in uu kaajoodo aw lacag waayo ama shaqo waayo marka inuu wareerabo isku qasbayo chatka subax soo fadhiyo iska qaadanaya uu iswereerinaya marka wuxuu islowsiinaya reality meesha ka jira marka baahida noocaasina marka ay jirto qofkii fikirkiisii baa yaraanaya oo wuxuu ka fikirayaa hadduu maanta qadadii helay cashadii buu ka fikiraya hadduu cashadii helo britola quraacii buu ka fikiraya marka in uu wax kareeyo amba maskaxdiisa maalo aad bay u yaraanaysaa marka waxay tahay horta marka ugu horeysa aan ku soo noqdo dawladdu waa in ay nidaam amba khad amba line jeexdo nidaam samayso si dhalinyaradu opportunity ay u helaan oo nidaamkana macaaw ka hadla social justice-ka ay hirgeliyaan number 2 dhalinyaradu waa inay kuwa noqdaan kuwa wixii soo baxaba u diyaar
dhalinyarada aan waxaan kale kuwa waxa jira inay isweeraraan jaad cunaan guryaha joogaan waxa ka fiican subaxii haddaad kacdo oo tiraahdo baska ma raacay amba meelba waxbaan iibini amba dukaan baan raadini amba shaqooyinkeena basic oo dhan wadankeena oo dhan dad kale ajaanib ka shaqeeya inaga dhalinyarada waxay leeyihiin meel 250 ama 300 ma ka shaqeynaan qaadan see lagu gaaraa waa inuu iyaga waa siday la tahay laakiin dadkeena Yurub jooga wax ka bartay nidaamkan la baray wuxuu yahay horta basic hoosta ka soo bilow oo baraf iyo biyo qabow iyo sharaab liin ba iibide gad at least waa dhimanaysa marka sababka ka bixinaan dabcan saas soo sheegtay horta imika marka xaqiiqda laga hadlo dadkii reer Djibouti aad ayay u bislaadeen oo dhalinyartii oo waxaad arkaysaa xaqiiqdii ka shaqaysanaysa basaskaas oo maaragtay krishbe dukaanadii ka shaqaynayso waxaad moodaa xitaa maaragtay dadkii maadaama adduunkiina isku furay maskaxdii baa korodhay wax badan dhalinyartii way isbedileen oo waa dad heegan u ah inay shaqaystaan hadda dulle gabagabadii adiga maxaa tala bixinaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim taladu waxay noqonaysaa horta waxna waxa le dadka waxna dawladda le marka dawladdu iyadu waa facilitator waxa la yiraahdo inay wixii dadkii u soo dhibriso oo u soo dhaweyso dawladduna waxay ka kooban tahay institutionya waxa la yiraahdo shuruuciyo isdul yaal min ka soo qaad chef de service-ka directeur-ka ministerka ilaa madaxweynaha laakiin xafiis kasti waa in haddaan markas waa in uu nidaan waxay noqonaysaa theory waa in lagu dhaqaaqo waxyaabo policy la yiraahdo oo xafiiskan u qoran oo ay ku shaqeyso xafiiskan ku shaqeeyo oona lagaga keenin diguudka oo internal affairs wax la yiraahdo ay leeyihiin aan waxyaabo iyagu dhexdooda xafiiskan dejisteen sida loo dejiyana boolisiyada xafiisyada ama dhulkan ku aragna xooyeen shaqaali baa la isku yeeraa director-ka loo yiraahdo wixii policy min ka cleaner-ka ee dhulka masaxaya ilaa ka ugu sareeya ayaa la weydiiyaa raggan sarsare meesha haystina way eegaanun wixii khaldamay waa lagu darayaa wixii xumaaday waa laga saarayaa taaba policy-gan u dejisan ka soo qaad meesha warqadaha lagu bixiyo kale service de population ko kale in iyagu policy dejistaan eedeedeedu waa sidii briefing kale inuu dhaqanto way bibliig buu dhaqmin maadaama lacag la kulmayso policy kale ka duwan inay lahaato justice ku policy kale ka duwan marka hadhowto institutionyada baa imanaya in hadhowto wixii dawlad noqoto laakiin mar alla markaan justice u baahanahay haddaan isu qaaday laaya ministerkii waxay ka dhigan tahay waxaan ka dul booday inta oo la kab oo qaban lahaa dhulkan markaan joogno markaad wax leedahay boolisiyada company-gu leeyahay ama meeshan aad u tagtay baa ku qabanaya oo ku raali gelinaya maba gaadhaysid ministerkii wixii sare taasi waa taas dadkay noqotay dadku wuxuu u baahan yahay wacyi badan in la wacyi geliyo oo loo furo seminaaro sideeyadan waxa la yiraahdo maaha in harimaadee iyo maaga lagu ciyaaron helo maskaxda dadka lagu kariyaa qofka arsaaqdiisa dawladdu ma hayso laakiin madaxiisa way qaban kartaa madaxa dadka fura sideeyadan u fura seminaaro dadku inuu hadli karo dadkii wax bartay inay meesha yimaadiin oo wacyin karaan dadka wacyinayaan soo wacyinaan ma ay ku dhiiri gelinayaan qofku inuu kaco inuu wax samayn karo inuu noloshiisa dabari karo kadibna marka waxa dhacaysa inuu arsaaqadiisa u furanto noloshiisa helo dawladuna tax ka helaysa laakiin sida loo hayo una sideesada looga dhigayo meel lagu ciyaaro hidiyo dhaqanka waxay noqonaysaa adigoon buu berito la ku rogi doonaa kan dhibaato maskaxda dadka ha la kobciyo oo dadka maaragtay fikirkooga ha la dhageysto dadka ha laga neefiyo qofka bini aadanku waayo waa bini aadan hooyadiiba waxay dhashay isagoo xora kolka qofka bini aadanka in laga neefiyo oo la dhageysto waxa uu hayo wixii wanaagsan laga qaato wixii kalena adba waa diidi kartaa dabcan waa taana cali waa sax weeyaan waxa kale oo kugu dari lahayn dadkan sideesiyada in loo keeno oo dad wax garanaya
oo wax u akhrinaya loo sheego oo dad maaragtay shaqaalaha ah anagu markaan dhiganayna liisego kale waqtigaan ka baxnay maalin baa la noogu yeedhay maxkamaddii oo dhan maxkamadda wax noo sharxaysay shiishashkii baa noo sharxayay wax maalin kale armigaa la noogu yeedhay shaqada armigii xudhum ay nooga sheekeeyeen maalin kale waxaa noogu yeedhay takhtaradii shaqada takhtaradii formasyonyadii siday ahaayeen marka hadhowta maxaa dhacaya wixii markaan wada dhegaysano qofka oranaya armiya baan rabaa anugu kani baan rabaa oranaya marka qofka waa la dhiiri gelinaya marka dadkan shaqaalaha ah sideesayada ha yimaadiin oo dadkan yare meesha jooga ha uga warramaan shaqadu siday tahay marka hadhowta waxaa galaya shucuur inuu isaguba shaqo tegi karo oo serviiska ka mid noqono ama serviis kalaba samayn karo xasan adiguna maxaad oran lahayd gabagabadii kolleyn anigu waxaan kusoo gabagabayn lahaa siduu maxamuud ka dhawaajiyey waxa meesha ka baxay horta institutionii amba dadkii hierarchigiiba ayaa meesha ka maqan waayo mar dhow waxaan maqlay Facebook ka maqlayay qof mid baa oranaya warqad baan u qortay madaxweynaha weli igama soo jawaabin de waxa laga yaabaa ninkaas inuu macallin ahaba for example macallin ahaba ka soo qaad de macallinkaasi wuxuu lahaan lahaa chef de service director wuxuu ahaan lahaa kii ku saabsanaa HR la oranaya amba human resources intii oo dhan marka ilaa madaxweynihii warqad u qortay marka ma waxay u egtahay marka ma nidaamkii oo dhan baa burbursan oo in dib loo dhiso u baahan waa mid leys waa su'aal anigu inaan weydiiyo ay tahay tagalaatiya dawladdu waa faali way fudaydinaysaa in wixii si ay ma aragtay dad wixii uu fudaydisay dadkiisa ay isticmaalaan ay iskarayaan laakiin waxa kale dawladdu u baahan tahay in urur dad loo saaro oo reflection oo loo fadhiisto bil amba 4 week inay committee meel fadhiistaan ay darsaan dhibta jirta maxaa dhaqaalaanta keenay maxaa tacliinta hoos u dhigay maxaa waddanka sabool ka dhigay waxa darsi u baahantay dariskana meesha uu ka maqan marka anigu ugu dambaysa waxaan kusoo gabagabin lahaa social justice-ku wuxuu iman karaa waa laba dhinac waa dhinacii dawladda waa in horta dawladdu ay horumariso kadibna dadkiisina ay fahmaan ay marka ay ku dhaqmi karaan marka xuquuqdoodiina way garanayaan equality-gi way garanayaan privilege-gi opportunity waa loo sheegay kadib taasi marka ku dhaqayaan waxaas taas nidaamkaabaana dadka joojin karo qofka kaa joojin kara haddii kale hodhow toole qofkii cleanerka meesha ee nadiifiyihii meesha masaxaya netwash samaynaya iyo secretary-kii dee fair ba isku imana waayo xeer wax joojiyo oo kale dhexdhexaadii ma jiro waa mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal intaa waxaa nooga eg barnaamijkii aanu kaga hadlaynay social justice ambase waxqabadka bulshada ee ku salaysan cadaaladda waxaana igala qayb galaya barnaamijka xasan xuseen cali oo loo yaqaano xasan jaanti iyo maxamuud cumar dulle intaynu dib u kulmi doonno waa anigoo cali casoowa waxaan idin leeyahay saas iyo nabadgelyo